السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة صاحب yaal marka intaynu casharada advancinta aynu waxyaalo badan kusameyn doono intaynu gaarin waxaan sharxana waxyaalo markaa loo baahan yahay in la sharxo haddaynu khalad baadinka marginka sida loo sameeyo waxaas oo dhan markaa sharxi doonaa insha allah haduu ilahi irado okay let's start with containerka okay containerka inta badan waxaa utii horta cabir oo yani exactly wataa so sidee cabir gaar uu samaysanaya okay let's see here in our css waxaan kusameynaa cabir gaara you see so cabir gaara saan uu samaysan jirta sida caadiga cabirkii aan naqaanay oo wixii kadib margin zero auto okay wax sharaxaada inta aan gelinayna ma jirto runtaa sheedana because of si fiican aan usoo sharxna okay waana huwa qof walba html shorta soo qaatay inuu fahmi karayo okay so waxaan rabnaa dhex bartamaha in la dhido 70% okay and hadda 60 ka bedelo so 60 ka siino la fahmi karaa 60 so let's see aanu maana halkan so waxaa siinaysa marka class containerka let's see rid of that class and see okay marka waxaa ku odeysiinayaa inuu ku qaadanayo class oo halkan soo diyaarsatay taasi marka let's see aan aragno abun slash server okay already uu soo baxsanaa marka waxaa siinay witiisa 60% waxaa ku arki kartaa waa bedeleynaa waxaa ka dhiganaa like 80 save you see 80% that's it marka witiga muhiimadiisa intaas oo lahaa aawkii inta loo qorayayna ma jira ha uu jiraa laakiin waa kooban yahay let's see wuu kooban yahay waa 20% 50% iyo 70% iyo 100 bis uu leeyahay okay waa w25 w50 w75 iyo w100 okay so sidaas ku siin doonaa marka kana marka isku hay screenshot ka qaado marka cabirada maadaama uu leeyahay waxaa samayn kartaa customization adaa samaysan karo jalaasta wacanaysa sida jalaasku lagu soo diyaariyo kale aad u soo diyaarsanaysaa kuwaana way diyaarsiin intaan way diyaarsiin intaan way jiraan 25% 50% 75 iyo 100 okay so markaa waxaa u gudbaynaa waxaa rabaa inaan idiin sharxo marginki barinka already kora idinka sharxi karaa laakiin wixii information uu sii raadi mar walba okay so haddii aan hal mar idin yaro fiiriyo halkan so margin total emaad soo caawinaynaa barinka t mtt margin t waa utinta margin to bay noqonaysaa xitaa markii cs aynu soo qaadanayna waxaan isticmaali jirnay like emittista isticmaali jirnay saa utiin so emittista inta badan isticmaali jirnay so mt mb aan dhihi jira so xogo yar waa idin soo bush jiray aan dhihi karaa oo horaa idin soo waday so waa fahmi jirtaa hadda mt oo kale horaa ka fahmi jirtaa waa margin top mb horaa ka fahmi jirtaa waa margin bottom mano okay ml oo kale margin lift horaa ka fahmaysaa so taa xitaa sharaxaad idinkama rabto idinkama marata yani inaa fahansantii waa fahmaysana waa fahmi karaa so nothing else aa fahmi jiray meesha ma weyaalo so inaa idin tusa isha idin saaro keliya weeyaan so waxaan sameynaynaa like okay let's come here nato waxaa soo ceshataa halkan soo yarcesiye marka aynu u practice jirayno okay america eeda umalena okay so tusaale intaan siinay inta kala siinayna xitaa waxaan siinaynaa margin 3 oo kale ujida padding sorry padding 3 oo kale okay so waxaa siisanaynaa kuwa horta isku dhejan yihiin tablekaas saraa isku dhejinayo waxaa gelinaynaa marka laba table camal aan ka dhigaynaa okay si margin loo tijaabiyo dabcan margin waa garanaysaane margin si aan u tijaabino laba table camal aan ka dhigaynaa ama laba qoraal xitaa waa qoranaynaa sorry guys loram waa soo koobaya dabcan margin iyo padding maybe inaa isdhowsid waa ka gudbaya cashirkan so laakiin hal mar yara dhaysu jiraya okay kan markaa qoraalka waxaa siinayaa margin top waxaa siinayaa like 3 halkan margin waxaa siinayaa margin bottom waxaa siinayaa 3 miya okay good caadi weyan okay mujida so margin aa la siinaa laakiin haddii bilaa margin uu alaa fiiri bila space uu ahalaa macnaa bila margin uu ahalaa bila space uu ahalaa caadi mujido space had zaa'id aa u badino si aan u fahno waxaan sameynaynaa margin okay cgs kale okay so margin top adena kana asina cs la si so hadda lix siinay xitaa waxaan ka dhigi jirnaa 5 ka dhigi jirnaa let's see 5 ka dhigana waxaa ujeedaa markii space in la siinayo oo margin ah soo kale baadin waa la siin doonaa baadin waa arrinta soo haddeertaan idin tusay oo tableka halkaas idin ku tusay haddii aad badinay xitaa waa arkaysaan
let's see waxaan dhihi karnaa glass halkaa siinayna waxaan dhihnaa padding 5 okay where I am giving row okay td da camalaa siisanayna you see wajida waa la badiyey zaaida u badiyey macnaha zaaida loo badiyey intana t headka siiso okay let's see padding 5 okay wajida okay that's it and I hope waxaan rajaynaynaa fahanteen lifti iyo right everything waan dhihi jirtaa lifti oo kale haddaan ahayd dhinka lifti oo loo sii doonaa right haddaan ahayd right loo sii doonaa haddii aad top waa top loo sii doonaa yani haddii laakiin aad waxba raacsiin waa fahansidiisa waan waxaa haddaa waxba raacsiinin top waa ujeeda qoraalka hoosaa la keenay top baa la isiiyey laakiin haddaa waxba raacsiinin geesaha dhanaa la isiinaa so sharaxaadda CSS weeyaan so intana waad ku fahmi kartaan so I hope marka waxaan rajaynaynaa intaan fahanteen waxaa ugu talagalay inaa marka aan u gudubto qaybta advancedka so waxaan dhisi doonaa insha allah formkan aa ujeedaan insha allah very cool waaye waxaan dhan adima sameynaysid you are not going to do this okay just see this the bootstrap will gonna do for you and you are going to explain waana sharxi doonaa insha allah hadduu ilaahay raado so every staff waynu sharxana don't worry about it let's jump to the other lesson keep going keep learning keep coding wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh